gobolada ilaa degmooyinka ilaa heer tuulo markaad fiiriso nabadgelyada deegaankeena aad bay u fiican tahay marka loo fiiriyo maanta marxaladda dalkeenu Itoobiya uu ku jiro wadabtiin deegaanada kale shaqooyin badan baa ka jirta laakiin deegaankeena marka la fiiriyo horta maanta deegaanka ugu nabadgelyaysan weeyaan oo ugu fiican xagga nabadgelyada maanta markii loo fiiriyo deegaanada kale ee dalka markii loo fiiriyo markaan sidaa leeyahay hadda koor waxaan ognahay gaar ahaan dhacdadii xamle istiilaatankii dhacday iyo burburkii ballaana ee dhacay wadagtii hayadihii iyo istarajarkii dawliga dhammaan sal iyo bar hal mar uu burburay waxaa kaloo ka dhacay meesha dhibaatooyin badan yaa ka dhacay dunuub badan baa ka dhacday dembiyaal badan baa dhacay dad badan baa dhintay dad baa ku dhaawacmay hanti badan baa la boobay oo khasaartay gaadiid badan baa la dhacay burburkaa dhacay ee ballaarnaa isbeddelkani markuu yimid shaqooyinka bilownay ee dib loo dhisay istarajarkii iyo nidaamka dawligaha ilaa kor ilaa hoos markii la dhaadhiciyey nidaamkii istarajarkii dawliga la dhaadhiciyey ee hay-adaha amnigana la dhisay run ahaantii wax walba sidoodii yay ku soo noqdeen waxaa jirta oo kale iyadana maalmaha dambe waxaa jira dadyo u damacsan in ay shacabka deegaanka gaar ahaan caasimadda magaalada caasimadda jigjiga inay khalkhal geliyaan waxyaala badan baan qabanaynaa waxbaan samaynaynaa banaanbaxyaan samaynaynaa waxyaaba dhibaatooyin baan samaynaynaa sidii hadda korba dhibaatooyinka aan u samaynay deegaanku shacabkuna runtii waxyaalaha dhan ee lagu soo qoro social media sida gaar ahaan Facebook oo kale dadku waxay moodayaan waxyaala dhan wixii Facebook lagu soo qoro inuu wuxuu run yahay waayo waa dagaalka dhinaca media la yidhahdayo waa in la khalkhal geliyo nidaamka hadda jira la khalkhal geliyo oo la cabsado ama shacabka la khalkhal geliyo oo shacabku say ay ama waddanka uga cararaan ama ay waanqaxina yidhahdaan sidaa daraaddeed shacabka waxaan ku wargelinaynaa in waxaas inta badan uu propaganda yahay wixii aad aragtaan ee dunuuba la samaynayana idinkoo hay'adaha amniga la kaashanaya in aad noo soo sheegtaan laakiin waxyaalaha badan ee propagandada badan ee lagu soo qorayo Facebooka lagu soo qoraya inayna run ahayn inaad idinkuna saa u qaadataan weeyaan wixii dunuuba ama dembi samaynaya ama waddanka khalkhal gelinaya aragtaan hay'adaha amniga gaar ahaan booliska qaybihiisa kala disan aad soo sheegtaan si tallaabo looga qaado laakiin yaan la khalkhal gelinin baan leeyahay shacabkan saasaan leeyahay kuwii shalay dunuubta kala gedisan galay ama dadka laayay dadka dhaawacay hantida shacabka boobay bangiyada boobay dhibaatada sameeyey iyagana qaar badan waa la hayaa qaarka dambena waan qaban doonaa biidnillahi kariim sida ugu dhaqsaa badan hadda kahor dawladda fursad badan bay dadkaas siisay haddana laakiin dambiilayaashii waxay moodeen dawladdu inaba arkinba iyaga noocaasa waxay doonayaan fallo badan iyaga inay sii fuliyaan ay sameeyaan balse runaantii shacabka naga wanaagsan ayaa taa ka hortegay habeen iyo maalinba shacabku hay'adaha amniga way nala shaqeeyaan runaantii shacabkana aad baan ugu mahad celinayaa nabadgelyaduna dan bay noo wada tahay dhammaanteen nabadgelyadu dan bay noo tahay innaga dhammaanteen nooloo dhan bay nabadgelya dan u tahay nabadgelya in aan ilaashano innagay dhammaan dan inoo tahay markaa shacabka runaantii waan u mahad celinaynaa iminkana waxaan ka codsanaa shacabku dadaalka shalay noo muujiyeen maantana inay muujiyaan innaga nabadgelya danteena inoo tahay kuwa dambiilayaashaana dawladdu hadda iminka ooma sii dulqaadan doonto tallaabo cad oo ay dadku arkaan ayaa la qaadi doonaa wixii harsanaa haddaan usoo laabana dhinaca hay-adaha amniga maxaa isbedel oo aad ka samayseen hay-adaha booliska deegaanka soomaalida si nabadgelyada iyo shacabka ay u taageeraan waa su-aal fiican hay-adaha amniga horta qiimeyn bay galeen waa la isqiimeeyey reform baa la galay waxbarashaa la siiyey hay'adaha amniga gaar ahaan booliska qaybihiisa kala gedisan sida madaxweynaha booliska liyu booliska asluubta waad ogtihiin 2 bilood iyo bar bay ku xareysnaayeen hadda kulliyadda booliska waxbarasho badan oo si loo dhiso dhinaca aqoontooda laftooda tacadiyadii shalay jiray sayna ugu noqonin dhinaca aqoonta run ahaantii waa laga dhisay dhinaca shuruucda waa la siiyey dhinaca dishibliinka waxyaalo badan oo dhinaca aqoontooda si looga dhiso waa la siiyey run ahaantii iyagana kadibna waxaa lagu xojiyey qiimeyn reform baa la geliyay markaa waa la isku dabalay ciidankii qaybahoodii kuwa dhibaatada qabay waa laga saaray meesha kuwa degniimaa la siiyey kuwa dalacadaa la siiyey run ahaantii hay-adaha amniga reformka ballaaran baa la geliyey iminkana hay-adaha amnigu gaar ahaan booliska qaybihiisa kala gedisan madhayaa booliska liyu booliska iyo qaybaha kale laftooda si fiican bay hadda u shaqeynayaan shaqadeena si fiican baan hadda ugu jirnaa
hoggaan ku-xigeenka nabadgelyada dowladda deegaanka Soomaalida ayaa isaguna dhankiisa sheegay in dadka danaha gaarka ah leh ee danaha shakhsiyadeed wata isla markaana raba inay deganaanshiyaha shacabka wiiqaan ama ay khalkhal geliyaan tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono. waxaan halka ka gudbinayaa in dimuqraadiyaddii iyo isbeddelkii dowladda oo deegaanka iyo dhammaan dalka ka dhashay markii la sugay xuquuqdii qolinsaankii iyo sarreyntii sharciga iyo xorriyadul qowlkii dadkii loo fasaxay in si khaldan ay u isticmaaleen dadka sida khaldan u isticmaalayana waxa weeyaan dadkii waddanka hagardaamada u geystay burburkii waddanka ka qayb qaatay soo taageerayay nidaamkii xumaa ee cunsuriga ahaa ee ku salaysnaa inuu dadka uusan daryeelin sarreynta sharcigana uuna ilaalinin haddaba laamaha amniga iyo xafiiska nabadgelyada dowladda deegaanka Soomaalida heer degmo heer gobol heer deegaan intaba waxaanu maanta u diyaar garoobaynaa una diyaarnahay dadkana u sheegaynaa cidda sida khaldan propagandooyinka iyo xorriyadul qowlka uga faa'iideysanaysa ee waddanka waxaan jirin oo dhibaato iyo khalkhal ka gudbinaysa markii iyaga sareyntooda sharciga ama si dastuuri ah loola dhaqmin leeyay dhanka kale u wacday uga faa'iideysanaya dadka inay propaganda been khalkhalka ka geliyaan haddii ay noqoto facebookyada haddii baraha bulshada noqoto haddii ay si indirect ah noqoto waxaan u sheegaynaa horta in la socdo qof kasta talaabada uu qaaday ka dawladahan in la socono waxaana nooga qorshaysan maanta laga bilaabo cidna inaanaan uga dabcinaynin amniga waddankana annaga ayay xil naga saaran yahay ciddii khalkhal inay geliso isku dayda ee isla laguma moogana waanu la soconnaa tallaabada ku habboonna waanu qaadaynaa ma aha in dimuqraadiyadda iyo isbeddelka waddanka ka yimid iyo xorriyadul qowlka dadka loo fasaxay ma aha in loo isticmaalo si indirect ah oo lid ku ageed socodka dawladda laakiin waxaanu uga digaynaa dadka aanu u sheegaynaa dadka ku hawlan propagandada beenta ah dadka ku hawlan dacaayadda dadka ku hawlan dawladdana way habacsan tahay ama tallaabo ma qaadi doonto waxaanu u sheegaynaa inaana habacsanayn waxaanu u sheegaynaa in dulqaadkii iyo ixtiraamkii xorriyadul qowlka iyo dadka aanu siinay inuu soo koobanayo oo aanan sii dhowran doonin ka nabadgelye ahaan xafiiska nabadgelyada dowladda deegaanka Soomaalida heerarkiisa kala gedisan waxaanu fariintan ugu gudbinaynaa cid kasta oo xorriyadul qowlka si khaldan u isticmaalaysa ama dadkii burburkii hore iyo siyaasadii hore intuu ka qayb qaatay hadda mataqaanaa qarinaya si indirect ah inaan la moogeyn u malayn waxaanu dadka uga digaynaa in cid kasta oo deegaanka amnigiisa iyo hawlahiisa geedo socda ka socda si khaldan wax uga turjunta ama uga sheegta annagoo gaar ula soconna guud ahaan la soconna in tallaabo cad aanu ka qaadi doono samirkii ama ixtiraamka aanu siinaynayna annagoo ninna ku gafaynin aanu dawladda ku gafaynin oo sharciga la horkeeni doono inaan tallaabo adag ka qaadi doono dadweynaha annaga waxaan leenahay cid kasta haddii ay shaqaalo tahay haddii dadweynaha caadiga tahay ciddii ammaanka waddanka ama propagandada waddanka inay been ka sheegto ama ay wax ku dimiso isku dayaysa dadka hore ee hadaagi xukuumadii hore weli aanan mataqaanaa aanan weli tallaabada ka qaadin ee kalifay inaan soo dadajino tallaabo qaadkooda in dawladda xubnaheeda kala gedisan laamaheeda amniga shacabka iyo shaqaalaha dawladduba ay u soo fiidhoonaadaan u soo istaagaan sidii ay nabadda u garab istaagi lahaayeen cid kastana waxaan ku adkaynaynaa sharciga cidna kama sarreyso jasiiradda loo yaqaan Robben Island ee uu ku xidhnaan jiray